maanta waxaan idin soo jeedinayaa barnaamij mar hore inoogu dambeeyay oo ahaa barnaamijkii maxaad ku riyootay. insha Allah biidnillaahi alkariim fasiraada riyooyinka ayaan dib u bilaabi doonaa ilaa iyo dhowr riyo nala soo weydiiyey ayaan ka jawaabi doonaa insha Allah. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله كسو دوادا شيخ ريمي channel. maanta waxaan idin soo jeedinayaa barnaamij mar hore inoogu dambeeyay oo ahaa barnaamijkii maxaad ku riyootay. insha Allah biidnillaahi alkariim fasiraada riyooyinka ayaan dib u bilaabi doonaa ilaa iyo dhowr riyo nala soo weydiiyey ayaan ka jawaabi doonaa insha Allah. barnaamijkan aan wadno haddii aad ka heshid fadlan like sidii roobka inooga yeel, subscribe na soo dheh inoogu soo biir, gambayalkana furo si ay kuu soo gaaraan wax kasta oo cusub aan soo gelinayno insha Allah. hadeertaana barnaamijkeeda si toos ah aan u guda galayaa. riyada koowaad waxay tahay sidatan: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sheekh Riimiyow, ilaahay janna ha kaa waraabiyo adigii ehelkaada. waa mahadsan tahay walaashayda muslimada ah sida aad magaranaysaa iigu soo duceysay, adigana masalkeeda Allah ha ku siiyo. waxay leedahay gabadhan: sheekh Riimiyow, waxaan ku riyooday aniga oo janno la igelinayo oo aad aan u faraxsanahay, haddana isla markiiba la iga soo bixiyey oo la iga soo celiyey la ileeyahay aad banaanka. haddana aad ayaan u murugay. waxaan isiri sheekha bal weydii waxay ka macno tahay. bismillaahi wassalaatu wassalaam calaa rasuulillaah. riyadaani way ku wanaagsan tahay, balse adigu waxaad u aragtaa inay magaranaysaay sharci ku tahay. haddii aadan xanuunsaneen oo janno lagu geliyey lagaa soo bixiyey, waxay ka dhigan tahay in acmaal wanaagsan adiga aad samaynaysid, balse acmaashii fiicnad aad samayn jirtay aad ka noqotay heese iyo munkaraad adiga aad u jeesatay ayay ka macno tahay. haddii aadan xanuunsaneen janno lagu geliyo aan lagaa soo bixinin aad soo toosi laheedna, waxay ka dhigan tahay in magaranaysaay acmaashii jannada lagu kasban lahay in aad adiga samaynaysid amaba aad ku jirtid. 4 macno ayaan kaaga dhigay. 2 haddii aad xanuunsan tahay waaye, 2 kaleentana haddii aadan xanuunsaneen waaye. 2 aad xanuunsan tahay waxaan ku dhahay jannada haddii lagu geliyo, markii lagu geliyey kabacdi aad soo toostay adoon lagaa soo bixinin, taadi ayaa soo dhawaatay, ahlu janno ayaa tahay ayaan ku dhahay biidnillaahi alkariim. macnuhu waa macnahaas. macnaha labaadna waxaan ku dhahay haddii qof xanuunsan adiga aad tahay oo inta jannada lagu geliyey haddana lagaa soo bixiyey aad soo toostay, xanuunkii baad ka kacaysaa insha Allah biidnillaahi alkariim. waa bishaaro iyo wanaag lagu sii diyaarinayo iyo caafimaad insha Allah dib dambe aad u heshay waaye. inta iga dhig waa 2dii aad xanuunsaneed. 2 aadan xanuunsaneen ayaa kuu soo hartay. midi waxaa waaye jannada haddii lagu geliyey oo adiga oo yacni ku jiro ama sidii lagu geliyey ay tahay aad soo toostay, camal wanaagsan ayaad samaynaysaa, way fiican tahay. laakiin haddii aadan xanuunsaneen jannada inta lagu geliyey haddana lagaa soo bixiyey, qof wanaagsan baad ahaan jirtay, laakiin munkaraad ayaad samaynaysaa. digtoonaan lagu soo diray waaye ama digniin lagu soo diray waaye. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. riyada kale waxay tahay: assalaamu calaykum sheekh Riimi. sheekh, waxaan ku riyooday bay tiri, waa wiil cafwan, waxaan ku riyooday anigoo akhrinaya suurat alam nashrax. bismillaahi wassalaatu wassalaam calaa rasuulillaah. riyadan kadaata aad bay u wanaagsan tahay. maxaa yeelay alam nashrax qofka akhrinaya waa يعني معنى بدن بيلاده هاي
oo wada wanaagsan gebigoodaba laba macno ayaan ku soo gaabsanaynaa. macnaha kuwad waxa weeyaan culeyskii saarnaa, culeys badan baa saarnaa, culeyskii ayaa ka degayo. hadday xanuun ahayd, haddii ma garanaysaaye murug ahayd, wixii dhan waa ka degayaan. macnaha kuwad waa macnahaas. macnaha labaadna waxa weeyaan Allah subxaanahu wa tacaala xasilooni ayuu qalbigiisa soo gelinayaa dhibaato dheer ka bacdi. yacni waa isku macno un. mid waxaan ku dhahay shididii uu hadda ku jiray ayuu ka nasanayaa, midna waxay tahay dhibaato badan uu soo maray, inshiraax sadri ayaa hadda ka dambayso. calaa ayi xaal tafsiirka alam nashrax siduu yahay ayaa riyada lagu fasiraa. maxay tahay? cusri yusra, inna maca alcusri yusra. culeys kasta oo jira fudayd ayaa ka dambeeya. riyadeedana xaqiiqatan waa sidaas. intaas ayaan uga baxnay. riyada saddexaad waxay tahay, qofka saddexaad riyadanu soo weydiiyey waxay tahay: assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sheekh, waxaan ku riyooday aniga oo madaxayga aad iila yaraaday, dadkii ay igu qosqoslayaan. maxay ka noqon kartaa madaxaas aadka iigu yaraaday? gabar waaye. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. walaasheedii muslimada ah, cadow badan ayaa kugu farxi doono. haddii adi ganacsi aad ku jirtay, waa ka xuma inaan ku dhaho, xoogoo khasaare ayaa kusoo gaarayso. haddii guur aad ku ballansaneed, guurkii waad ku fashilmi doontaa, waa lagaaga bixi doonaa. waxay ka dhigan tahay haddii adiga magacaa lahayd, magacaada hoos ayuu imaan doonaa oo magacaaga nusqaan ayaa ku imaanayso. waxay ka dhigan tahay sida madaxaada uu u yaraaday ayaa wax kastoo hadeertan adiga aad haysatay ay kaaga yaraan doonaan. waxay rabaan ha ahaadaane, way fiicanaan lahayd madaxaaga inuu weynaado. maxaa yeelay maal aad helaysid waaye, martaba aad helaysid waaye, magac aad helaysid waaye. inta hadeertan aan kuu soo sheegayo ii sheeg cagsigeeda waaye. madaxaaga hadduu yaraado, ii sheeg arsaaqdaada yaraanayso. ii sheeg adiga calaa ayi xaal ma fiicno. intaas ayaan kusoo intaasaan uga baxaya, kuma sii dheeraanayo insha Allah biidni illaahi alkariim. bismillah. hay'ada kale waxay leedahay sidatan: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sheekh Riimiyow, waxaan ku riyooday anigoo aad u faraxsan oo haddana farxaddii aan soo koobi la'ahay. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. waa ka xumahay, ma jecli inaan magaranaysa farxaddaada aan burburiyo, laakiin riyadu farxadda mar kasto waa murug. riyada murugta ahna mar kasto waa farxad. hadeertaan kolley ii sheeg adiga istikfaarta badi, salliga nabiga badi. oo gabadhaan aragtay farxadda, murug ayaa ka dambayso. qofkii kale hadaayay toole madaxiisa yaraa, saasoo kale gabar ayay ahayd, ayadana dikriga, istikfaarta, ducada ha badiso si Allah subxaanahu wa tacaala uu uga leexiyo insha Allah. riyada kale waxay tahay sidatan: waxaan ku riyooday sheekhow, habeen kasto dibqalooc ayaan magaranaysaye aan dilaa. mar waa ceyrsadaa, mar waa iga fakadaa, waa iga baxsadaa, marna waa dilaa. badanaa waxaan u badanahay inaan dilo. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. riyadan si fiican iu dhegeyso. marka hore cadow daciif ah ayaad leedahay. dibqalooc cadow ayaa lagu fasiraa. cadow tabar daran ayaa lagu fasiraa. maxaa yeelay isla markii uu ku qaniino, canug yar uu qaniino, isla markaas way soo bararaysaa. meeshaas ayay u dambayso. suntiisa ma kugu faafayso sida oo kugu faafayso maska iyo abeesada iyo wixii la midka ah, siday kugu faafayso ma kugu faafayo. waa cadow tabar daran marka hore. haddii dibqalooc qofkan isoo weydiiyey layma aha, waa usii faahfaahinayaa si mar kale la arko aan la iigu soo celinin. haddii dibqalooc aad aragto isagoo ku qaniinayo, cadowgii ku xaman jiray dhibaato badan ayuu kuu geysanayaa. ii sheeg waxyaabo adiga aadan jecleen ayaad ka kala kulmi doontaa
laakiin marka dambe way iska dhamaan doontaa sida markuu ku qaniino ay ku xanuunjiso ka bacdi hadana ay isla markii ay ku caafimaadayso insha Allah waa hadii uu ku qaniino hadii uuna ku qaniinin aad burbursanaysid waa cadow ka cabsanaya ka dhuudhuumanayo waa tabar dareeyay mar horaan ku sheegay laakiin wuu ka dhuudhuumanaya oo inuu magaranaysa foolka fool uu kaaga hor yimaado wax ku dhaho ma aboodo luqluqyada iyo banaanada iyo dadka dhaxdooda kaleente ayuu ka soo hamxamleeya sidaas daraadeed marka wuu ka baqaya cadow ka baqayo oo ku xamanayo ayaa ay jirtaa waxba ka mataraay laakiin waayahay taas waa markii adiga uu ka dhuudhuumanayo uu ka ordayo ayaan ula jeedaa dib qalooca imma dib qalooca hadii aad dishay waxay ka dhigan tahay cadowgaagii daciifka ahaa ku xaman jiray ayaad qaban doontaa waadna ka adkaan doontaa yacni siday tahay ayaad magaranaysaa ugu guuleysan doontaa waadna ka argagaxin doontaa waadna ka naxin doontaa waadna ka adkaan doontaa yacni faraha ayuu kaa qaadayaa banaanka ayuu kaa marayaa sidaasaana wanaagsan inaad dib qalooc dishid ayaa ka wanaagsan intaas macna ayay leedahay waxaa kaloo ay dhici kartaa haddii jirkaaga dib qalooc uu ka soo baxo xanuuno ruuxiya ku hayay ayaa magaranaysaa ka nusqaamay ama ka baxay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam riyada kale waxay leedahay sidatan waana nin assalaamu alaykum sheekh riim waxaan ku riyooday aniga oo dooli dilaayo jiir anigoo dilaayo ayaan ku riyooday bismillaahi wassalatu wassalaam ala rasuulillah horta haddii jiir adigoo haysta aad ku riyooto naag xun ayaad qabtaa naag xun dhagarley ah ayaad qabtaa haddii jiir aad adiga dishid haddii jiir adoo rabo inaad dishid ka baxbaxsanayo ku dhibaayo jiirku waa dhib badan yahay moogtahay naag dhibley ah ayaad qabtaa oo ka cabsanayso balse hortaada waxay rabto ayna ka dhehaynin haddii aad disho jiirkii haddii aad disho naag xun oo aad iyo aad u fool xun oo yacni dabeecadeeda dhaqankeeda u fool xun ayaa ilaahay uu kaa badbaadiyey tusaale ahaan adiga dhowr naagaa qabtaa amaba hal naag unbaad qabtaa waxaad ku riyootay adigoo jiirkii dilay waxaa kaaga cadaanayso meeshaasi in naagtaas aad kala tagi doontaan ay ku dhibi jirtay oo aad isdhaafi doontaan tan waa ninkii naag ayaa arki karta jiir saasoo kale laba mid waaye waxaa lagu fasiraa ninkeeda oo naag kaleente usoo dhawaanayso waa naag xun mar kasto jiirku sidiisaba waa naag xun haddii nin uu arko naag xun isaga uu qabo waaye haddii laba ay yihiinna mid hadda uu qabo iyo mid uu rababa way xun yihiin haddii laakiin naag ay aragto waa ninkeeda oo naag xun oo rabto inay afgambiso gurigeeda ka burburiso rabto ayay ka dhigan tahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam riyada u dambaysa waa ka xumahay riyadan inaan saasaan dhaho waxay tahay assalaamu calaykum sheekh riimi waxaan ku riyooday aniga oo agtayda yaalaan biyo oo gabagabaysanayo ama booreysanayo qofba sida uu yaqaano waa ka xumahay gabar waaye gabdhaha khayr Allah siiye ii sheegay iyaga ayaa magaranaysaa aad iyo aad iigu badan asxaabteeda qudheeda xataa iyaga ayaa ku badan asxaabta igu xiran dumar ayaa u badan ayaan ula jeedaa walaashayda muslimadda ahayd inaan saas ku dhaho waa ka xumahay waxaa wanaagsan qofka markuu gabagabaysanayo ama booreysanayo in meel biyo aan lahayn ama biyihii way yaalaan oo magaranaysaa laakiin wax la cabayo un ay yihiin ay yar yihiin shuruudaha loo gabagabaysto haddii aad u gabagabaysanaysid haddii adiga oo u gabagabaysanaysid aad ku riyooto way wanaagsan tahay laakiin adigoo gabagabaysanayo biyihiina ay yaalaan oo aadan xanuunsaneen haddaba waxay ka dhigan tahay qof shareecada islaamka ka leexsan dhinaceed uga leexsan tahay waad ka iilan tahay
dhinacyad uga iilan tahay isgaar intaadan khaatam xumo ku dhimanin seen ku dhahay waxaan ku dhahay riyada gabagabaysiga shuruudihii caadiyan loo gabagabaysanayay haddii laga helo way ku wanaagsan tahay jiro ku haysay kaa degaysa waaye deyn lagugu lahaa lagaa gudaayo waaye ama iska gudaysid waaye safar rabtay aadaysid waaye maal badan aad helaysid waaye guur aad helaysid waaye awlaad aad helaysid waaye way wanaagsan tahay haddii biyo la-aan aad u gabagabaysanaysid biyihii waa yaalaan waad xanuunsan tahay qof xanuunsan inaad tahay aad isdareemaysaa riyada dhexdeeda taasoo kale way wanaagsan tahay iyada qudheeda culays badan kaa degayo waaye laakiin biyihii waa yaalaan ama adigoo gabagabaysanayo ayaad waxaad dareemaysaa in biyo yaalaan waxaad leedahay biyo waaba loo jeedaaye biyo waad yani biyo waaba yaalaane gabagabaysiga maxaa waa haddii adiga aad la yaaban tahay shareecada islaamka ayaad ka dhinac leexsan tahay waadna og tahay inaad ka leexsan tahay usoo noqo gabadhan weliba kaaga sii daran tiktoker ayaan ahay dhahday waana gabar caan ah haddaan idiin sheego waad fahmaysaan gabadhan si gaar ah ayaan magaranaysaa kuugu nasteexaynaya walaasheeda muslimadda ahayday wallaahi uma wallaahi wax kale ma aha tiktok aad isticmaalaysid xitaa ma aha waa qaabka adiga aad u isticmaalaysid waxaan ku dhihi lahay waxyaalo badan kaa qaldan ayaa ay jiraan adba waad og tahay fiidiyoyaasha waa ii sheeg adiga fiidiyoyaasha adiga aad soo dhigto waad is og tahay walaasheedii fiidiyoyaashaas ka saar haddii laga saari karo waa laga saari karaa u malaynaya waa la tirtiri karaa maaho iska tirtir riyadaani daacadii ilaahay inaad ka leexatay ayay ku cadaynaysaa qof la jecel yahay ayaa tahay ilaahay banaan cidlaa kaagama tegin fariin ayuu kuu soo diray fariintan uu kuu soo diray dhabay riyadaad waxay cadaynaysaa khaatim xumo ha ku dhimayn ayaa lagu leeyahay digniin lagu soo diray waay min allah xaggiisa kaaga timid riyooyinka riyada ugu runta badanna way tahay tiktokeriyay magacaadii iga soo fakanine isdaji ayaan ku dhihi lahay fiidiyoyaashaasna meesha ka saar towbadkeen wallahu subxaanahu watacaala aclam intaasaan kusoo gabagabeynaya walaalayaal waxaan haleeyey naf iyo shaydaan ay ka ahaadeen ilaahay hanaga dhaafo waxaan hagaajiyey min allah xaggiisa ka ahaadeen allah naga ajar siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh